Bismillahirrahmanirrahiim. Kusoo dhawaada qaybteenii 32 ee Python. Qaybtan waxaan ku qaadan doonaa modules. Module ama modules waxa waaye markii fileka uu yahay Python, koodkiisan uu yahay Python ama uu ka kooban yahay Python. Filekaas waxaa la dhahaa module instead of file la dhigaa module lagu magacaabo. Marka sidaas darteed module iyo sida loo isticmaalo waan fiirinaynaa. Waxaan kaloo fiirin doonaa packages difference u dhexeeya module. Marka ugu horeyso YouTube furno new module ka hadda waxaa sameynaa waa module. Marka ayna sameysay dhibta hadda waxaan sameynaa module la dhaho YouTube waa sameysan tahay. Marka sidaas darteed module-ka kan aan iska tiro waxaa loo tiraa sidaas delete. Okay, module-kan importiga uga bilowday error dhanka systemka ah. Marka sidaas darteed labada module waxaan ka dhigaa isku furaya layout-keeda. Waxaan tagayaa Windows kadibna waxaan leeyahay editor types split right aan leeyahay. Okay, midna hadda module-ka marka haddii rabo inaa wixii koodka inta ku dhex jira haddii rabo inaa ku waxaa la adeegsadaa import. Laakiin hadda meeshan waxaa isticmaala ma yeelan. Tusaale kale hadda dhaho def print or dhahno printing kadibna and print markaa waxaa u dhiibayaa waxaan ku qoray YouTube module. YouTube module markaa ku qoro intaan hadda markaa inta ka rangareeyo wasan. Marka haddii aan rabo koodkan inta inaan ku isticmaalo functionka waa inaan u waca. Laakiin haddaan rabo inaan inta ku isticmaalo sidee ugu waca? Hadda dhaho printing bas soo qabanaa, printing ma soo qabanaa. Sidaas darteed waxaan rabaa inaan waxay noqon inaan soo import gareeyo. Import ayaan leeyahay. Import markaa dhaho waxaan leeyahay YouTube markaa dhaho waxaan sameyn karaa inaan dhaho YouTube waxaan dhihi karaa inaan dhaho YouTube dot printing. Waxaan gareyn doonaa markaa dhaho inta ay ku shaqeyn doontaa si fiican fiiri. YouTube module xagee taala? Waxay taalaa YouTube filekan Pythonka YouTube xagee lagu isticmaalay inta. Marka import statementiga saas u shaqeysaa. Si kale waa sameyn karaa inaan dhaho from YouTube import printing saas oo qabanaya printing. Hadda marka printing waa banaanka taala waa cid bisay gartaa. Printing haddaan dhaho waa taas oo wac bis functionkan isticmaalaysa waa tan. Marka labadan
module waxba iskama gelin laakiin code ku qoran ina inta ka isticmaasho daartid san waxaa loogu talagalay marka saan oo kale in waxaan soo import gareeyo la isku dhex isticmaalo markii uu yahay code complicated oo system la dhisayo oo program uu yahay program weyn saas loogu talagalay marka hadda daaran gareeyo printing kan waa function ugu caday oo kaleeto way shaqeynaysaa markaas agaasa YouTube module waxaa noo soo haray sida loo abuuro waxaan hilmaamnay in class oo kaleeto isticmaalno okay class aan isticmaalno waxaan leenahay class marka dhahay YouTube class maana gaarin laakiin waan qaadan doonaa insha Allah laakiin hadda wax yariis oo introduction marka classkan waxaa u dhiibaynaa variable xamlana x waxay ku lamid tahay labo oo kaleeto marka classkan haddaan rabo inaan inta ku isticmaalo asna sidii kan camal soo akhrin karaa hadda kan under control x control z okay make sure mar walba in importiga ay ugu sareyso meesha marka wax soo import gareysanaysa saas fiican okay meesha hadda function soo import marka wax import gareynaysa waxaa lagu kala gartaa functionka module-ka iyo classka capital way laakiin functionka iyo module-ka waxa kala duwan oo small marka function markii uu soo u yeeriso kaleeto caadi marka uu yeerto ayada soo baxaysa laakiin module-ka ayada laftirkeeda loo yeeri karaa laakiin kan ay kala duwan yihiin meeshaan wicitaanka meeshaan kala duwan yihiin hadda marka aan rabo inaan module isticmaalo kaleeto module YouTube hadda dhaho YouTube dot markaas leeyahay markaasna waxaa iska tirayaa control x intaan leeyahay control v dot markaa dhahdid printer ku soo qaban saas waa midaas oo meeshan waa module tan waa function laakiin haddii aad u baahnaa classka ka waran classka laftirkiisa meesha uu soo galaa hadda dot aan leedahay waa kaas laakiin hadda meeshan c ku qoran waa class intana waa function inta c ku qoran waa class intana f ku qoran waa function saas oo kala garanaysa bracket noo sii wata marka YouTube class marka dhaho wuxuu u baahan yahay objectiisa waa hordhac kulli maanan qaadan waan qaadan doonaa dib qaadan doonaa marka meeshan bracket aan leedahay variable kiisa marka hadda marka cadaanka meesha waxa lagu saari karaa cadaanka jaalaha wuxuu igu saarayay option ka fiican jiro optionkaas ma arkayna marka waxaan sameynaynaa x waxaan leedahay dot x x dot x markaa dhahay x dot x markaa dhahay wuxuu dhahay statement seems have no effect marka intaan gelinayo wuxuu dhaha arkayna wuxuu soo saaro ana waxaan rabaa inuu isoo saaro labo waa isoo saaray okay difference hadda u dhaxeeyo YouTube from and from YouTube
import inta capital aan dhaho sidii hore waxaa fiican sidan kaagan baahno variable wax badan inaad ku shubtid oo objective marka instance ka samaysanaysid marka that is to external lagu soo qabtay. That's how it works in modules. waxaan tegaynaa packages kan aan iska xiro. Packages waxaa samayn kartaa inaad dhahdid inta projectiga furatid kadib aad dhahdid new package markaan dhaho YouTube package. Okay, package saa u jeedid marka wuxuu sameeyey init package walbo file waxay wadataa la dhaho importigan kuma jiro file waxay wadataa la dhaho init marka anaga laftirkeena waan samayn karnaa hadday waxaan sameynaa module laakiin hadda waxaan sameynaa package right click the new directory marka koowaad qaabkana loo samayn karaa qaabka labaad loo samayn karaa waa sidan inaad directory samaystid oo dhahayd u_package markaan dhaho directory waaye directorygan kan isku mid ma aha hadda ujeedaa marka maadaama aan package ka rabo waa inaan dhexdeeda ku samaystaa korkeeda right click dhaha python file aan dhaha waxaan leeyahay _init _ enter dhaha fiiri marka say package u noqotay intaan iska tiro package say u noqotay fiiri systemka import ku dhagan marka saas darteed mar walba file python samaysid import iska soo dhex gelina waxa qalad oo dhanka systemka marka python file meeshaan aan ku sameeyay inad la dhahayo initkaas markaa samaysid marka wuxuu u aqoonsanaa directoryga inay package tahay packagekan file ma ku samayn karaa okay aan soo qaado filekii hadda youtube inta aan keeno koodkiisa inaan isticmaalaan rabaa marka okay hadda fiiri intuu yaala koodkiisa inaan isticmaalaan rabaa fiirso okay waxaan leeyahay from u package oo jeeda waxaan leeyahay import markaa dhahdid kadib waxaa ku jiro initka maraba laakin youtube kana rabaan youtube kan waxay ka jiraan okay intaan joogno umaleynaa intaan joognay kan iska xiro import waxaan leeyahay youtube classka aan soo qaadan youtube markaa dhahdid class aan soo qaatay class lama rabo module ana access garanaysa class ku access garayna markaas waxaan access garaynaa module oo youtube youtube package soo access garay si kale waxaa jirta la dhahayo import youtube package markaa soo qaadatid waxaa dhahdaa dot waxa ku jiro ku saaray youtube module ku jirto initka macnaha classka ku qaadan doona initkan mar walba package ka lagu aqoonsanaa wax oo module hadda ma aqoonsana saas darteed hadda waxaa jooga module-ka dot ma sii dhihi karaa maya dot wax kale kuma soo saaray haddaa rabtid inaad marka access garaysid waxaa kuu fiican in aad dhahdid hadda meeshaan oo kaleeto x waxay kuula mid tahay leedahay youtube markaas access garayn kartaa classkii functionka hadduu soo qabtay
saas package u shaqeysa. Marka intaas ay inoo ogtahay qaybteennii 32 ee programming ayadoo la isticmaalayo Python. Next waxaan rajeynayaa inaan qaadano programmo kuwan ka sii xiiso badan hadhowti aan gaarno meel oo aan ku samayn karno all class projects. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.